عليكم ورحمة الله وبركاته وشانلka taqwa Soomaaliya channel iyo qaybtii barnaamijka diiniga ahay oo labaad iyo Ramadaankii labaad Ramadaan mubaarak channelka subscribe like share samee commentigana hoos ku reeb bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelkeena taqwa Soomaaliya channel maanta iyo video cusub baran doono ka faa'iidi doono maanta insha Allah tacaala waxaa ka hadli doonaa zawjad oo kamid ah zawjadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salay nabiga maanta baran doonaa qisadeeda insha Allah tacaala hada channelka cusubta subscribe saar like saar share garee la wadaag asxaabtaada hadalaha qurxoona isoo dirtiin waa ku mahadsantiin jazaakum Allahu khayr dadka igu soo diro YouTube-ka amba Snap-ka amba iskale Instagram-ka waa ku mahadsantiin maanta videogeena noo bilaabanayo dhageysi waan maanta waxaa ka hadli doonaa insha Allah tacaala Maymuna bint Harith radiyallahu anha rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu aroosay dhamaadkii sanadka 7 yani xilligii jaahilnimada markay ku jirtay waxay aroostay nin woo furiyay xilligii islaamnimadan waxay aroostay ninkaasna wuu ka dhintay markaas kadib oo rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam oo guursaday hooyadeeda Hind bint Auf qariib waa qisadeeda hooyadaas waxay leedahay 6 gabdhood 6 gabdhood rasuulka calayhi salaam wuxuu u bixiyay al-akhawaat al-mu'minaat walaalaha mu'miniinta ah marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadaani Hind wuxuu ka guursaday 2 gabdhood oo ah Maymuna bint Harith iyo Zaynab bint Khuzayma oo ka soo hadlay ka guursaday yani waxa waa labadaasi xaas waxay yihiin xaasaska rasuulka calayhi salaatu wasalaam Zaynab bint Khuzayma way ka dhimatay bilooyin marka laba bil qaba amba dadna yani riwaayooyinka kala duwan yihiin dadka fiirsan videoga fiirsada way ka dhimatay dhaqsiyo u dhimatay kadib wuxuu guursaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam Maymuna bint Harith yani naag hooyadan wuxuu ka guursaday 2 gabdhood oo ka guursaday marka Maymuna bint Harith iyo Zaynab bint Khuzayma radiyallahu anhum waxay yihiin waa hooyo isku hooyo laakiin isku aaba maahan isku hooyo bis waay marka walaalaheeda kale tan waxa guursaday waxay qabtay walaal dhahay Lubaab al-Kubra ee qabtay waxaana guursaday Abbas bin Abd al-Muttalib waxayna qabtay walaal kale dhahay magaceeda Lubaab al-Sughra waxaana guursaday Al-Walid bin Mughira yani iyada waxay u noqonaysaa habaryarta Abdullah bin Abbas iyo waxay u noqonaysaa habaryarta Khalid bin Al-Walid radiyallahu anhum marka walaalaheeda kale tan Asma bint Amis waxa qabi jiray Ja'far bin Abi Talib qabay Salma bint Amis iyadana waxa qabi jiray zawjada Hamza bin Abd al-Muttalib ahayd iyo Salama bint Amis iyadana waxa qabay Abdullah bin Ka'ba qabay fa yani walaalaheeda dhan waxa qabeen saxaabiyiinta والله أعلم سيدنا رسول كان عليه الصلاة والسلام أقولها أخوات المؤمنات ميمونة بنت حارث وأم الفضل بن حارث وسلمى امرأة حمزة وأسماء بنت عميس يعني رسول كان صلى الله عليه قبلها ولا مؤمنين ميمونة بنت حارث أم الفضل بنت حارث سلمى امرأة حمزة أسماء بنت عميس رواه النسائي في سننه الكبرى فأروس كذا ميمونة بنت حارث وحي وكيلتي العباس رضي الله عنهم فرسول عليه الصلاة والسلام وحو قرصدي يعني حلقة عمرة القضاء يعني عمرة دي أور دعدي حديبية كذب ورسولك عليه السلام يعني قريش waxay siisay 3 beri bas ee siisay لأن مكة oo galay rasuulka عليه الصلاة والسلام markaas rasuulka عليه الصلاة والسلام wuxuu rabay inuu guursado Maymuna bint Harith fa wuxuu dhahay quraysh wuxuu dhahay yani hal beri bas isiya fursad hal beri bas isiya gabadhan rabay inuu guursado hal beri bas fursad isiya markaas ay ka diideen waxay dhahan adiga iyo naagtaada baxa yani ukhruj anta zawjatak ay dhahan quraysh markaas Sa'ad bin Mu'adh inta kacay wuxuu dhahay inma al-ardu ardu Allah yani dhulka ilaahay waay وحول له سعد والرسول يتزوج أين شيء عند رسولكم وحول جورسنا ما شربوا جوك وجورس كرا مركز الرسول عليه السلام حولها ماي أنا كأيه قريش يعني وحنا قد عهدي ميثاق أنا قد حيس واسك بحينا مركز الرسول عليه الصلاة والسلام أو بحي أنا رعد عروس ديسة فرسولك عليه الصلاة والسلام ميمونة بن حارث راشين كذا آد وجعلها يعني راشين آد ومعان أوف يعني كريجرت مروى البو حتى وحي لها قصص آد وبضنت كلها طبخية دمتي رضي الله عنها سنتك لحن الإيكوات دمتي روايون كانوا وحي لها وحي دمتي سنتك كونت الإيكوات والله أعلم إذا وحي جرت رواية وحي لها 6 سنة رواية كانوا وحي لها إذا جرت 6 سنة والله أعلم رضي الله عنها marka waxa jirta rasuulka sallallahu alayhi wasallam jaariyad oo laha magaceeda Rayhana bint Sham'una meel ku qoran waxa laha meel kale waxa laha Rayhana bint Zayd allaha wallahu a'lam rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka helay sabiga oo ka helay markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam asoo socdo gadaashiisa oo ka maqlacad markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay Allahumma ij'alhu fulana yubashshiruni bi Rayhana annaha aslamat markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu u dhahay markuu sii jeestay codkii oo yani gadaashiisa qayb markuu u jeestay waxa dhahay ya rasuulallah yani Rayhana aslamat yani Rayhana way islaamtay
waxaan lagu duugay radia allahu canha baqiica lagu duugay riwaayooyin badanaa jirto oo dhahayaan rayxaana bint yaziid yani zawjooyinka rasuulka calaih salaam ma kamid aheen waxay ahayd jaariyad riwaayoyin kale waxay dhahayaan waxay kamid ahayd zawjooyinkiisa laakiin allahu tacaala aclaa wa aclam anaka zawjaadka oo dhan waa niisoo wada sheeg insha allah tacaala qaybta zawjaadka nabigina calayhi salaatu wasalaam intaasaa ku eg tahay maanta videogeena maxaa ka faa'iidi doonaa waxaa ka faa'iidi doonaa insha allah tacaala sida aniga mar walba aa u dadaalo inay helo maalan yani waxaa arkaysiin videoyaashayda badi waxaan dhahaa riwaayoyin saan laana ma jecli inaan mar walba aa sheego wax amba hadal oo hadhowta hadalkaas aniga dembi igu noqon laana dad badanaa i fiirsanayo markaas yani maanta camal hadaa helo xadiid waxaa jecla xadiidkaas inay galo kutubada oo waxaa maalan oo saxaabada kutubka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam yani inaa hubiyo xadiid saxiix miyaa mise xadiid daciif waay yani dad hadda waxaa arkay social media ku jiraan oo ay xadiid ay arkaan isku soo saarayaan taas camal ma fiicna يعني حديثيالكاس يعني ضعيف كبضي إن لسوق ما فينا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وله إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني مرة والبحر قال قفت إن يعني مركز وصار حديث كاس جوجل أجره جوجل قال ماله حاجة موقع لها إسلام ويب ماله حاجة لها أو إسلام ستوري يعني وحاجة مواقع أبدا أو ناس كهيل كرتدا جرت أو أحاديث وحيالها سبضن قريين أجره هو عمل السوق هذا يكاكو شيء رواه البخاري ميامس رواه المسلم ومستحوى حديث ضعيف يعني مرة والبإيدي له بصراحة فيعم لأنه وحنا الدين فإذا ستاس كوا يعني وحا شير جرينس إي وحا أخرينس إي وحا كس إني أوجات دام مرة فيعم طلباتنا إن شاء الله تعالى قصتنا وحا كفائدة دونا إي قصوين كزوجات كنبي عليه الصلاة والسلام كسوه ظهر له وحا كفائدة دونا إن شاء الله تعالى إن عروفتين وشينا إن أنا كسكو بربارينو إن مرة بحا حسوسنا إن مرة يعني ما نيكرنا إن نقلوا إيه كعمل لكن يعني أفعالتين إن خير نقطة خير البدن كبرنا نصير أم المساكين عمل مساكين تبضن صدقين السينو إن صدقة بحسنو إن يعني وحيال آد وبضنا كفائدة دونا فيديو إن شاء الله تعالى أنت سوق أجا فيديو حري إن شاء الله تعالى بريتو هذا إلهي إلهه كل أنتم دنبوحي سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنت هذا وش هذا القروح بدن جزاك الله خير. سيدا هور أوصل على channel كإلهي سبسكرايب لايك شير. السلام عليكم.